waxaa barnaamijka Daris uu dugsiga 26 Juun soo gaarsiiyay tartan kooban oo u dhaxeeya 20 dugsi sare oo ku yaala magaalada Hargeysa. tartankan barnaamijka Daris ujeedada ugu weyn ee uu ka leeyahay waxa weeyaan dhiirigelinta akhriska marka koobaad, marka labaadna dhiirigelinta ardayda dugsiyada sare ee 20ka ah. tartankan dhowr qaybood buu u qaybsamayaa. qaybta koobaad ama wareegga koobaad wuxuu ka dhacayaa dugsiga 16 arday ayaa ku tartamaya, kadibna waxaa ka soo bixi doona 3 arday. saddexda arday waxay la tartami doonaan tartan ay iskugu imanayaan dhammaan dugsiyada tartankani dhex yaalo oo ah 20 oo midkii walba 3 arday uu ka soo baxay. saddexda arday ee guud ahaan ugu sareeya marka uu dhamaado tartankani kaalinta koobaad waxaa lagu helayaa abaalmarin ah $500. kaalinta labaad waxaa lagu helayaa abaalmarin $300. kaalinta saddexaad waxaa lagu helayaa abaalmarin $200 ah. waxaa soo baxday natiijadii wareegga labaad ee dugsiga ka dhacaysay. saddexda arday ee aan yeedhin doonaa waxay idinku matali doonaan tartan ay isugu imanayaan dugsiyo 20 dugsi sare oo magaalada Hargeysa ku yaala oo tartankani dhex u yahay. kaalinta koobaad waxaa ku soo baxday gabadh magaceeduna waxa weeyaan Moha Saleebaan Garow. saacada loo tago. kaalinta labaad waxa galay Cabdiqani Xuseen Xasan. kaalinta saddexaad waxa u soo baxay Cabdalle Siciid Maxamed. xafladan bilan ee boqoran tartanka ardayda dugsiga sare 26 Juun dhex martay. tartankaas oo ahaa Daris habka akhriska speedka maxaan ku raay hibooyinka ay ka mid yihiin gabayada, farsamooyinka, intaaba aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay inaanu ay arday kasta ay soogaado bal waxa uu ka hayo. marka tartanka dhammaan ardayda waan u mahadnaqayaa. waxaan aad iyo aad u sii hambaleynayaa saddexda arday ee ku guuleystay inay iskuulka magaciisa matalaan. waan ku soo dhaweynaynaa, aad baan u mahadsanyihiin. dugsiga 26 Juun wuxuu soo bandhigayaa hal abuur cajiiba. waxaana u soo gudbin doonaa labadan arday oo hal abuuray qorshaha halkan yaala waa Cabdiqani iyo Suhayb. marka iyaga inoo sharaxi doonaa hal abuurkan iyo humaagyada ku jira iyo sida uu farshaxankani u yaalo. ku soo dhaw. farshaxankan horta xagan ka muuqda aniga iyo Suhayb Jamaal baa ku suntanoo samaynta caasimadan waxa nagu dhiirigeliyay annagoo horta labadeeduba is dhiirigelinayo labadeedu baan kaalin weyn ka qaadanay samaynta iyo dhigista shaxda horta marka koowaad waxa weeyaan caasimadii Hargeysa oo saas weeyaan mustaqbalka Hargeysa insha Allah. caasimadu marka koowaad waxay ka kooban tahay moolal iyo fooqaq iyo garoomo iyo xagan oo khayridiya iyo wadooyinka iyo bariishadii. biriishkan wuxuu ina tusayaa in waxa weeyaan biriishka Hargeysa oo xagan marayna yihiin biriishkii iyo masaajidkii iyo moolal iyo diyaaradii iyo xagan suuqa weeyaan